الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقضبضي كسابسنا حلينتا خلافاتك وان كهليني waxaan tilmaamay xadiiskii hore shan qodob oo loo mari karo saddex muhiimah iyo labo furan waxaan tilmaamay hadda xagga processka iyo wadada la maro khilaafka si loo xaliyo conflict management ama conflict resolution ama maareynta khilaafka sideedaba maareynta khilaafka sida marka aan leenahay waxa weeye walaalayaal mar walba inaan fahamno khilaafkii oo dhan baa la suuliyey maaha macnaheed waxa weeye isagoo wax la isku khilaafsan yahay ayaa la wada soconaya ayaa wax la wada qabsanaya waxyaalo kale oo aan la isku khilaafsanayn baa laga tacaawunaya wax la iskaga qabsanaya ilan tacaawunka iyo wada jirka bani aadamka iyo wada socodkiisa waa sunna kowniya la-aanteed waxba ma soconayso dowladnimaan jiri hayn nidaam baan jiri hayn dhaqaalaan jiri hayn wada socod baan jiri hayn dacfi baa dhacaya dhibaataa dhacaysa marka brosesyada loo maro si laysu fahmo oo ama sulxi loo gaaro negotiation ama wada hadal iyo wada xaajood xataa uu u dhaco xukun iyo maxkamad xataa loo gaaro khilaafkii si loo xaliyo wadooyin baa jira tallaabooyin baa jira in loo maro ay tahay xalinta khilaafka toddoba baan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala maanta kilibkan midda koowaad waxaa weeye horta waa khilaafka in la fahmaa khilaafka waa in waxa uu yahay iyo meesha uu yahay iyo qodobka uu yahay waa in la fahmo waxaan la isku khilaafsanayn si aan hadhow loogu daalin ama gidaarka madaxa loogu garaacin hayjad cidla ah waxaan isku khilaafsannahay waxaas iyo waxaas biyahan isku khilaafsannahay badda iskuma khilaafsanin daaqaan isku khilaafsannahay ceelka iskuma khilaafsanin xadkaan isku khilaafsannahay tijaarada iyo ganacsiga iskuma khilaafsanin masalan tusaalan ka wada marka horta waa in la xadidaa oo la yidhahdaa kow labo saddex weye waxaynu isku khilaafsannahay kuwan kale miyaynu isku diidannahay maya iyaga ma ka wada hadli karnaa wada hadal miyay u baahan yihiin sawta in laga qof walba ka faa'iidaysto uma baahno oo laga wada shaqaysto haa laga wada shaqaysto waa loo baahan yahay waaya qodobka labaad waxaa weeye in lala xaajoodo cidda khilaafku khuseeyo khilaafka cid buu khuseeyaa qof walba ma khuseeyo dadka uu dhab ahaan u khuseeyo waa in iyaga lagala xaajoodo haddii ninka iyo xaaskiisa ciladu ka dhexayso hooyada in lagala xaajoodo ama sodohda wax badan natiijaha ma keenayso qofka xaaladdu khusayso baa la rabaa in lagala xaajoodo saddex waa in laga fikiro inta xal ee suurtagal ah aa la isla soo dhaweynaya marka hore ama waxaa la yidhaahdo maskaxda laga shaqaysiinaya intee xal baa suurtagal ah inay dhici karto aan ku wada socon karno ku wada shaqaysan karno labadina ku wada faa'idi karno waa la qoraya kow labo saddex afar shan lix toddobaad toban labaatan afar waxaa la dooranayaa oo laga xulanayaa inta ugu macquulsan ee ugu fiican xalka ugu fiican baa laga dooranaya shan waxaa la adeegsanayaa cid kale oo haddii anagu aanu soo dhadhaweyn karno labada iskhilaafsan isla soo dhadhaweyn karaan cid dhexdhexaadin samayn karta oo isla soo dhaweyn karta oo la farsamayn kartana waa la dooran karaa lix waxaa la ogaanayaa la fiirinayaa xataa xal kaleeto oo waxaanoo dhanba ka duwan oo badiila alternative baa laga afka qalad alternative wax bedeli karaa oo waxaanoo dhanba noo bedeli karaa okay badda ayaynuba isku haysanay sow maaha beri iyo beer ma heli karnaa nooba bedeshaba baddiiba waaba ka baxnay arrinkeeda halkaa igu xir oo laisku hayay xal ka fiican oo ka duwan oo alternative ma heli karnaa baa la fiirinayaa ugu dambayntii qofku xalka inuu galo oo xal raadiyo isagoo on pressure iyo stress iyo maaragtay culaysyo iyo xanaaq iyo caro iyo waxyaalo maaragtay dareenkiisa iyo caqligiisa wax yeeli karaa aanay ku jirin inuu la yimaado toddobadaas haddii la raaco waxaa la gaari xal waxaa la gaari in xalkii la helo ama cagta la saaro loo maarayn lahaa loola noolaan lahaa khilaafka mar walbana waan ku celinaya waxaa weeye khilaafkii oo dhan in la zuuliyo meesha shardi ma hadda dadka aidiska qaba ilaahay naguma keene qofkii cudurkii lagama zuulin karaayo laakiin waxaa la barayaa sidii loola noolaan lahaa waa lala noolaanaya cuduro badanaa jira saas oo qofku yani cuduradan hadda diabeticska
cudurkii diabetka miya qofkii sonkortii laga tirtay maya wuxuu ku leeyahay diabet baan diabet ma la nooshahay ha waa la nooshahay see adiga diabetku ku heshiiseen see ku heshiiseen maad ama dhimato ama isagu ka tago meesha kaas kaligiis ma aha halkii waa wada noolaanaysaan diabetic baa ku wada noolaanaysaan adoo diabetic aad noloshaadii wadanaysaa maaragtay qaab baa jira aad ku wada noolaanaysaan oo heshiis ku tihiin kiniinigaas aad waktigaa qaadanaysaa xoogaa bresharkii joogsanaya bresharkii qaabkaasaan ula noolaanaya qaabab loola noolaadaa jire war soomaaliyey barta in lala noolaan karo xataa khilaafka la maarayn karo barta xaggaan u duday iyo xaggaan u duday xal ma aha idinmana aha nololna maaha